Asalaamu calaykum asxaabta soo dhawaada. Saaxiibada aad leedahay saddex nooc ayay u kala baxaan. Kuwa ku caawiya waqtiga uu dhibku haysto, kuwa ayaga dhibka ku horseedeen, kuwa kaa tagay xilliga dhibaatada ku haysatay. Qaybta ugu wanaagsan nolosha waa markii qoyskaaga kuu fahmaan, sida saaxiibada oo kale. Saaxiibadana kuu taageeraan sida qoyskaaga oo kale. Saaxiibada beenta ahi waa sida harka oo kale. Had iyo jeer way kula socdaan xilliga aad iftiinka ku jirto, balse ma arkaysid saacadaha mugdiga ama dhibka aad ku jirto. Inaad daacad ahaato kuma heli kartid saaxiibo badan, balse waxaad ku heli kartaa saaxiibo run ah. Marnaba saaxiib ku xulan adigoo si fiican u fahmin. Sidoo kale marnaba ha ku weynin saaxiib isfahan daro iyo muran yar. Saaxiib waxa ugu fiican kan alla ku xasuusiya, khayrkana kula jecel, marnaba aan dembi kuu horseedin, xumaantana aanan kuugu yeerin. Haddii aad kelinimada ka cabsan jirtay, hadda ka cabsi inay saaxiib kuu noqdaan dadka xun. Af kasta wuu kuu imaan karaa goorta aad faraxsan tahay ama aad guulaysato, balse kuwa dhinacaaga jooga goortii aad niyad jabsan tahay ama fashil ku soo gaara, kuwaas ayaa ah saaxiibadaada runta ah. Saaxiibka dhabta ah xaqiiqdii wuxuu ku yahay hantidaada nolosha. Si daacadnimo ah ayay ku hagaan kuuna taageeraan. Wehelkooda wuxuu ku xasuusinayaa inaadan marnaba keli ku ahayn dunidan. Iska ilaali saaxiibada xun ama nolosha ka dhacay inaad wax badan ag joogto. Saaxiibada noocaas ah ma rabaan inay keligood dhintaan, waxay rabaan inaad isla dhimataan. Waxaan rajeynayaa inaad muuqaalkan ka faa'iiday. Haddii uu ka anfacay, like saar, lana wadaag asxaabtaada. Fikirkaagana noogu reeb qaybta kommentiga.